waxaan u maleynayaa in badan way garanayeen marka waxaan ka aadi doonaa howlaha nuxurka leh jaamacadeedii waxaan ka bilaabayaa dhexe dugsiga hoose dhexe sare iyo jaamacadda magaalada muqdisho ayaan ku sameeyay dafcad ugu horeyso medicine-kan ahaa gobolada ka soo shaqeeyay ka soo tag waxa waaye takhasuskii ugu horeeyay masterka oo internal medicine ahaa kadibna waxaan ku soo qaatay dalka Talyaaniga 4 sano oo gastroenterology ah oo equivalent ah PhD ah oo 4 sano marka takhasuskii jaamacadda 6 sano kadib waa 6 sano kale ayaan dib u sameeyay waxaan soo noqday bare jaamacadeed macallimiintii jaamacadda ee loogu talagalay inay bedelaan macallimiintii Talyaaniga ahaa ayaan ka mid ahaa barab waxaan noqday waqtigaas ilaa iyo 9kii uu dhacayay muxuu ahay dhibaatada meesha rabo inaan ka bilaabo marka waxay tahay dhibaatada markay dhacday 91dii 92dii masiibooyinkii markuu dhacay anigoo aadi kara adduunyada meel kasta aadi karo waxaan go'aansaday wadankayga inaan joogo bulshadeeda badbaadiyo 30 sano waxaan ahay ninkii aanan ka bixin wadankan arinta ugu muhiimsan waxay tahay xilligii dagaalka uu socday inaan abaabulay oo muxuu ahay guddigii isku dhafka caafimaadka magaalada muqdisho guddigaas oo ahaa magaalada muqdisho labadeeda qaybood north iyo south ama koonfur iyo muxuu ahay waqooyi inaan fikirka xoogiisa aan lahayn aniga ragga kale guddiga iga tirsanaa saaxiibada ah taasna ay keentay magaalada muqdisho in aan ka howlgalno oo bulshadeena badbaadino oo dhaawicii yani ayadoo xabadii socdaan aan badbaadino khadkii cagaarna aad maqasheen waxaan nahay guddigii yani maray warqadda kaliya ee cali mahdi allah u naxariistay madaxweyne cali mahdi iyo aydiid ay isku waafaqeen wuxuu ahaa guddigaas isku dhafka caafimaadka ee magaalada muqdisho taasoo keentay in hay-adihii ay u riyaaqaan si markaa loo caawiyo bulshadeenni midda kale xasuusta leh kulliga intaa ka akhrisan doontaan midda kale xasuusta leh waxa waaye xilligaas waqooyi muqdisho cisbitaal la'aan ay soo dhacday cisbitaal ma jirin hal cisbitaal ku yaalo waa cisbitaalkii Furlanidaasna la bilaqaystay waxaa ilaahay igu ilhaamiyey taariikhdan aan ku galay maantana leegu xusaayo ma sha Allah in xabsigii kaysanay oo dawladii hore inaan u bedelay fikirkaas ilaahay igu ilhaamiyey aan u bedelay cisbitaal maanta bulshada Soomaaliyeed dawey cisbitaalkaas wuxuu daaweeyay tan iyo waqtigii la maanta 484 bukaan oo 200 ay yihiin qalliin waa la mahdiyay inta kuma neekaan waxaan sii wadnay maaragtay dadaalkeena cisbitaalada kala aan furnay waxaan furnay Banaadir waxaan furnay Dayndiina waxaan furnay Madiina oo guddigeena aan gudoomiyaha u ahaa taasna waxay keentay ayadoo dawlad jirin in aan ka noqono wasaaradda caafimaadka oo yani hawsha maamulaysa markii la gaaray muxuu ahayto hadafkeennana wuxuu ahaa bulshadeena haddii aan ka wada cararno dhakhtarkan loogu talagalay waqtigaas inuu dadka badbaadiyo waxay noqon lahayd dhibaatada inta waa ka badnaan lahayn waan u mahadcelinayaa guddigii dhakhaatiirta ee magaalada muqdisho 2000 markii la gaaray waxaan galay baarlamaankii ugu horeeyay ee ahaa carta oo waxaan ka soo noqday wasiir ku-xigeen haddana waxaa hal sano ahaa kadib wasiiru dowlaha caafimaadka ayaan 7 sano ahaa anoo hawshaas ku jiro ayaa 2002 waxaan aasaasnay aniga iyo 6 dhakhtar kale aan aragnay baahida jirta kadib markii dhakhaatiirtii qaarna dhinteen qaarna haajireen qaarna ay duqoobeen inaan u helno bulshadeena jiilna bedela jiilkaas aan u furnay jaamacad jaamacadda Banaadir aasaasnay oo muassasan ka ahay jaamacadda Banaadir 2002 la aasaasay kulliyadii waxayna maanta alxamdulillah waxa ka qalin jabiyay oo maanta waa 13 kulliyadood waaye waxaana ka qalin jabiyay maanta oo aan macallin u soo ahaa 1720 dhakhtar 1500 waa burburkii kadib
labada boqol konton waa burburkii ka hor waxaa caqabooyin badan soo hormaray oo aad la socotaan oo ay ka mid yahay qarxii shaamow oo yani lala beegsaday ardadii qalin jabinaysay qofkii qudbeynaya anigoo ilaahay waa naga badbaadin laakiin arrintaas annaga haddaan nahay muwaasiniinta hadafkeenni ahaa inaan soo saarno jiil la bedelana mahakin sidaan usii wadnay waatana aan ku sii darnay maanta takhasusyo oo 6 ah inay jiraan iyo 13 kulliyadood inta markaan uga baxo waxaan sheegayaa wasiir dawlaha markaan kadib baarlamaankan ku wareegay waxaan soo noqday gudoomiyaha guddiga adeega bulshada ee baarlamaankii waxaan soo noqday guddiga maaragtay aqalka sare guddiga adeega bulshada ka soo noqday haddaan u soo noqdo arrintan kale waxaan rabaa inaan sheego hal arrin waxa waaye degenaansho la'aantii afartii sano hore ee siyaasadeed maamul siyaasadeed amni iyo masiibooyinkii muxuu ahay ku habsaday Hirshabelle waxaa moodaa wax badan inaan aad loo qabanin oo yani horumarkii wax badan yani habsan ku dhacay isla markaa anigoo jooga oo ka tirsan xildhibaanada senatarada waxaan sameeyay inaan tagay magaalada Beledweyne kormeer ku tagay caafimaad iyo kormeer maxaa ay to arrimaha bulshada xilligii madaxweyne cali Cusable kadibna waxaan tagay haddana Jalalaqsi anoo gurmad caafimaad la socdo wasiirka masiibooyinka haddana waxaan ku noqday Beledweyne markii fatahaada haddana markii madaxweynaha la dooranayay madaxweyne cali Cabdullaahi ayaan inta imid oo ka howlgalay isbitaalka Jowhar hadda markaan imid socodkan ayuu waliba dhibaatooyin badan jiraan isbitaaladii oo aan rabo arrinta waxyar inaan ka sheego hadii waqtigiisa maxo waxaa jirta hadda markaan imid waxaan imid bisha 1deedii ilaa iyo bisha 9keedii isbitaalka la yiraahdo maxaa isbitaalka weyn oo Jowhar ayaan ka shaqeynayay oo ku arkay dhibaatooyin badan oo ka hadli doono oo aan yani horeynan heeda maxayto ula xiriirnay hore haddana aan rabno ma aragtay insha Allah inaan la xiriirno waxaan waaye isbitaaladii waxaa jirta qalab la'aan waxaa jirto daawadii ku yar waxaa jirta hatta maxay adeegi kale inkastoo hadda uu yaalo qalabka ultrasound aan ku shaqeynayay hadda maalmaha kan laakiin qalab kale wali ka dhiman sida CT scan iyo endoscopy labada isbitaal bakan Beledweyne iyo Kamba waxaan rabay intaan ku sii dheeraanin waxaan rabay inaan sheego muxuu ahayto waxyaabaha aan qoray in muxuu ahayto publication badan ama cilmi baaris badan aan sameeyay waxaa muhiim ah buug waxa la yiri waari meesay war ka haro waxaan qoray oo iga haraya maanta haduu Ilaahay tii alla ii keeno in muxuu buugga maanta jaamacadaha badan laga akhristo inuu yahay buugkayga ah oo aniga aan qoray waa soo dhamaanaya waan soo xiraanaya waxaan rabaa oo kaliya inta xagga ka akhrisan doontaan waxaa ka akhrisan doontaan waxaan rabaa waxaan rabay hortiina ka sheego abaalmarinada waxaa maanta Hirshabelle ku faanaysaa in ay maanta uu ka mid yahay senator Dufle oo ah dhakhtarka 5 bilood oo caalami la siiyay waxaana lagu siiyay waxa waa adeeg ummadana u soo qabanaysa ka dhamaaday waxaana ka mid ah abaalmarinta Nobel Peace Prize saasan waxaan ka codsanayaa hadaatiin yani dadka sharafta leh barkay waxa la yiri fayda karamta al-karima malaktahu wa idha karamta al-alima tamarrada dad kariiminatiin dad waxaatiin wanaagsan waa huba in aad xabiib noqonaysaan aad fahmaysaan aqoon sida madaxweynaha uu sheegay cadaaladda iyo aqoonta iyo kartida iyo wadanimada u helinaysaan aad baa wanaagsan wabillahi tawfiiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.